daawadayaal halkan nagala socotaan waa bartaan ku leenahay YouTube-ka Mose Media Page. qodobada warka duhur aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulkii ugu horeeyay oo bilaabay dhaqangelinta go'aanadii golaha wada tashiga qaran Soomaaliya oo halis ugu jirtay inay weyso codka ay ku leedahay qaramada midoobay iyo sababta ugu saaxiibayaal halkan nagala socotaan waa Mose Media Page. qodobadaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona warkeena duhur inagu soo kordha ayaan halkan ku faahfaahin doonaa. soo dhawaada markale saaxiibayaal. maamulka Koonfur Galbeed ayaa noqday maamulkii ugu horeeyay ee bilaabo dhaqangelinta go'aanadii ka soo baxay shirkii Muqdisho ee golaha wada tashiga qaran, waxaana ay ku dhawaaqday qabashada doorashada kuraasta ka mid ah golaha shacabka. guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleedka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo saaray liiska doorashada 5 kursi oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ka imaanaya dhinaca maamulkaasi, kuwaas oo la qabanayo doorashadooda. guddiga ayaa sheegay in isla maanta oo khamiis ay bilaabanayso diiwaangelinta iyo shaacinta guddiga xulista ergada, kadibna la sii ambaqaadi doona doorashada. kuraasta la shaaciyay ayaa kala ah hoob 184, hoob 85, hoob 156, hoob 176 iyo hoob 45, waxaana doorashadooda la qabanaya 18 bishan oo ku beegan talaadada soo socota. sidoo kale kuraastan ayaa ka mid ah 11 kursi ee ay ku dhawaaqday Koonfur Galbeed in ay qabanayso doorashadooda 1 bisha koowaad 2022, balse uu soo dhaxgalay shirkii Muqdisho. guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed waxay halkan ku soo bandhigayaan jadwalka qabashada doorashada 5 kursi oo ka mid ah 11 kursi ee la shaaciyay 1 bisha koowaad ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska guddiga. warbixin cusub oo ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay ayaa lagu soo bandhigay liiska wadamada aan wali bixin lacagaha qaaraanka ah ee miisaaniyadda golaha guud ee qaramada midoobay, waxaana qayb ka ah dalka Soomaaliya. warbixinta ayaa muujinaysa in Soomaaliya ay haatan halis ugu jirto in ay weyso codka ay ku leedahay qaramada midoobay, maadaama aysan bixin lacagta deynta oo dhan 1.4 milyan sida lagu soo bandhigay shaxda wadamada aan bixin oo ay Soomaaliya ku jirto. xeerka qaramada midoobay ayaa dhigaya in dal kasta oo aan bixin lacagta weyniyo xuquuqda codaynta ee golaha guud haddii aysan jirin duruuf ka baxsan gacanta dalka. xubin ka tirsan qaramada midoobay oo lagu leeyahay deyn bixinta tabarucaadkeeda maaliyadeed ee ururka wax cod ah kuma yeelan karo golaha guud haddii inta la eg tahay ama ka badan tahay qadarka qaaraanka ee ka soo baxay labada hore ee buuxa, ayaa lagu yiri qoraalka. sidoo kale warbixinta ayaa intaasi ku sii daraysa si kastaba ha ahaatee waxa uu ogolaan karaa xubintaasi inuu codeeyo haddii uu ku qanco in xubin la'aanta ay sabab u tahay shuruudaha ka baxsan xakamaynta xubinta. Soomaaliya oo muhiim u tahay ka sii mid ahaanshaha qaramada midoobay si ay ugu soo muuqato fagaarayaasha caalamka ayaa waxa ay tahay in ay iska bixiso lacagta lagu leeyahay, taas oo ay muddo iska bixin balse saameyn ku yeelan karto codka ay ku leedahay golaha guud. qaramada midoobay ayaa hore u go'aamisay in Soomaaliya iyo Comoros iyo São Tomé iyo Príncipe loo ogolaado inay codkooda ka dhiibtaan golaha ilaa dhammaadka kala fadhiga 26aad. si kastaba ha ahaatee Soomaaliya ayaa bishii Juun ee sanadkii 2020 loo doortay inay ka mid noqoto 21da madaxweyne ku-xigeenka ee kala fadhiga 75aad ee golaha guud ee qaramada midoobay, jagadaas oo ay Soomaaliya ugu dambeysay sanadkii markii uu ahaa 1979.